cabdi axmed oo ka mid ah burcadbadeedda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga markan yaa ku soo siiyay qolada markabka ay soo siisay walaal qoladan markabka iska lahayd oo meeya xagee joogaan Dubai bay joogaan Dubai bay degan yihiin markabku muxuu siday maxaa saaraa intaas uma doonaynaa inaan xaqiijino ma malaysaa ha walaal ayaga maxay weydiin weyn iyagu waxay igu yiraahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waagar idinku ma xaqiijiseen waxa markabku uu sido maanagu anagu waxba ma ognahay waxna moogin waatay waxa ogtiin muxuu yahay ma malaysaa waan ku maqlayaa cabdisalaam hareeri inaad tahay maxaa ku cadaynaysaa waa cabdisalaam hareeri baa walaal kula hadlaya Voice of America kaala soo hadlaya hadda maxaan ku cadaynayaa anigu ilaa Voice of America ma jooge bab dhaladaan joogay London baan kaala soo hadlaya warkanna idaacadaad ka dhageysan doontaa ma maqlaysaa hadda idaacadii lama jooge waxaan ku yiri maxaan kugu cadaynayaa adigu hadda cabdisalaam hareeri maxaa doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo ma maqlaysaa waan ku maqlayaa adiga magacaa ciise cabdi axmed ciisow markabka halkee ka soo qabateen ma maqlaysaa haye markabka halkee ka soo qabateen ciisow warniga waxaan kuu sheegayaa adiga waxaan rabaa cabdisalaam hareeri inka ila hadlaya iyo in kaleeto ma cadayn karo waxa weeye adigu markabkan badda hindiga alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa warar baa jira sheegaya ciisow inuu hub sido markabku maya anigu wax huba oo indhahay u qabteen oo markabku waday ma jeedin ciisow markaa lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furashaa in markabka laydinka siiyo waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baas noomay sheegin wax qiimo oo ilaa iminkaa ku heshiiseen haddaynan idiin sheegin hadda kuu sheego maxaad ka qaban karaysaa ma lacagtaad ma siinaysaa maya iyagaan lagu gudbin lahayn oo dhegaysan lahaa dalabkiina ayaga maya live baan u wada hadalnaa idaacada waxaan ka wada hadalnaa teleefon baynu ka wada hadalnaa laakiin ciise ma ii sheegi karaysaa qiimaha lacagtaad dalbanaysaan annagu waxaan kuu sheegi karaynaa lacagta markaan iyaga ka wada hadalno ciisow hawshan aad ku jirtaan idinku sida u aragtaan dad fara badani waxay u arkaan inay tahay hawl budhcadbadeednimo ah oo argagixiso badda laga samaynayaa adeerow annagu dad masaakiina oo kalluumaysataa oo badahooda ka kalluumaystaanu ahayn waxaanala ku soo daayay qashin kuwa sida maraakiib sida waxaanala ku sii daayay kuwa sun sida waxaanala ku sii daayay kuwa jiriifa waxaa hadda igu dhinac xiran mid kalluunka yagii wata shanaagaha yagii wata baraawiista yagii wata xargaha yagii wata qalabka yagii sita badiidaan ka mari weynay markaan dabacnay inaan iska difaacnana kuwa dagaal baa naloo adeegsado caalamku noo adeegsaday dad fara badan baa qaba sidaas inay tahay sidii marka hore ay ku bilaabantay laakiin ciisow imika waxaa la sheegayaa in badihii caalamiga ahaa oo ilaa Seychelles gaadhaan oo maraakiibta ka soo qabsataan oo kalluunkuna aanu ahayn kii badaha Soomaalida lagala soo baxayay annaga maxaan ku yidhi xeebtii annagu aan ku noolayn oo biyaha afkoodaha naloo soo galay annagana duruuftu meeshay nala gasho baan aadaynaa ilaa annagaba guryaha yagii iyo xeebta yagii baa la soo galay maxaa looga hadli waayey meeshii annaga aanu kalluumaysadayadu aanan dhaafi jirin iyo meeshii aan maaragtay ilmaha yagu xeebta iyagoo taagtaagan ay ka kalluumaysan jireen maxaa looga hadli waayey maaragtay marka naloo soo galay oo qarkii la jajabshay oo rugtiinala ka jajabshay oo marsooyinkiinala ka caybshay oo qalabka yagii lagu gurtay laakiin markabkana imika haysataan ma aha soo maaha mid isagu kalluumaysi maaha soo maaha adeerow macaanow annagu ma kala naqaan mid aan u qabnay xamuul ayaa waxaan aragnay kurteemaro ban ah asagoo nagu deex furayaynu aragnay marka annaga waxa weeye midkii annaga aan markaa badarka noo wadin oo aanan hebel u aqoon ma kala garan karno kii xamuulkaabaa waxaa naloo soo saaray haamo ban ah oo qashin ah waxaa naloo soo saaray muxuu ahayto ayagiibaa jiriifnala kugu bedelo jilba naloo soo saaray kalluumaysi ah midkii dagaalka oo xabadaha nagu ridayey ayaa dhinacna kalluumaysi ka oo xeebta noo taagan dhinacna xabad nooga ridayo annaga xabad nala dhacaya idinka yaa hawshan markaa idiin xil saaray waxaad tidhi dad kalluumaysataa baanu hayno quutal daruurigoodii laga hor yimi yaa idiin xil saaray hawshan annaga duruuftaa noo xilsaaray waktigaa noo xilsaaray waxa weeye markii anaga aan wixii aan ka qaraaban jiro ilmaha ku korsan jiray aan weynay duruuftaa noo xilsaarnay inaanu difaac galno
maraakiib horena sidaan qiyaasaya waa qabsateen ciise soo maaha qoladiinaasi maya annaga waxaana ma dhibaatayno annagu wixiina nabadgelya waana nabadgelinaa wixiina dhibaateeyana way iska ilaalinaa oo waxaanu nafta la galnaa inaanu iska celino siday u badan tahana hadda waaba nala ka awood badanyo waa nala ku laaya annaga laakiin maraakiib hore waa qafaalateen sow may jirin si ay ku dhammaatayba may maqlaysaa waan ku maqlayaa ciise annaga waxna nabadgeliyey ma qafaalano waxna ma qafaalane wixii nagu soo xadgudba ma waxaan isku daynaa inaan iska difaacno kaasina wuxuu ahaa ninka magaciisa iigu sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda iyagu haysta markabkaasi almiisaan cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga lambarkan yaa ku soo siiyey qolada markabka ay soo siisay walaal qolada markabka qoladan markabka